jeedadu horta waxa weeye kursiga in la boobo 67 dadkan musharaxiinta oo halkan jooga iyo kuwa kale oo maqan oo imaanaya ay musharax u yihiin in kursigii la boobo oo la kufsado ayuu go'aansaday maamulka galmudug waxaana riixaya oo arrinkaas ku taageeraya oo looga amar qaadanaya filla Soomaaliya way loo xoogayaa inaan ka hadalna rabnaa yaa xoogaya oo kursiga boobaya waxaan rabnaa inaan ka hadalno hanaanka khaldan ee lagu boobayo waxaan rabnaa inaan ka hadalno natiijada iyo cawaaqib xumada ay keenayso sida hadda wax ku socdaan oo aan aragnay oo boobka haddii lagu sii socdo ugu dambeynna waxaan rabnaa inaan la hadalno dadka kursiga iska leh bulshada Soomaaliyeed oo kala duwan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo isagu mas'uul ka ah doorashada Soomaaliya iyo dadka kale stakeholders siyaasadda Soomaaliyeed oo ay ugu horeeyaan musharaxiinta iyo beesha caalamka marka aan ku horeeyo kursigan yaa boobaya kursiga waxaa boobaya oo kufsanaya maamulka galmudug oo waliba si xaqiraad ah oo uu xaqirayo dadka iskale kursigan iyo deegaanada ay ka soo jeedaan si xaqiraad ah oo jees ah oo aan maxaan ku yiraahdaa wax akhlaaqi ku jirin oo la hadlaaya dadkii deegaankaas uu madaxweynaha u yahay iyo dadkii u tartamaya kursiga iyo odayaashii iska lahaa hormuudka u ahaa beesha kursiga iska leh maamulku sababta uu dhacaya waxa weeye waxaan ognahay maamulkaas waxaa dhisay filla Soomaaliya maamulada ay dhisto ka mid yahay sababaha loo dhisay oo meesha loo geystana waxay ahayd maantoo kale inuu sidaan wax ugu xoogo waxaan xog ahaan ku haynaa oo la wada og yahay oo stakeholders siyaasiyiintu ay og tahay kuraasta galmudug taalla in loo qaybsaday laba qaybood qaybta badan oo filla Soomaaliya soo qoranayso ayna ka gadanayso maamulka iyo qayb yar oo maamulka xaqiisa ka imaanaysa oo ayaguna ah dadkii wax u xoogay oo saaxiibo siyaasadeed u ah oo markii madaxweynaha asiga laga dhigayay u xoogay oo maxaan hanaanku asugu ku yimid dadkii mas'uulka ka ahaa intaas ayuu ku leeyahay waana in yar marka saddex loo dhigo kuraasta 30 iyo kuraasta marka laga reebo senatoriska kuraasta aqalka hoose ee meesha taala saddex marka loo dhigo laba dhigo kamid ah waxaa loo xoogayaa filla Soomaaliya lambaro ayaana ku qoran lambaradaasna dad magacay ku soo hoos qortaa la yiri ayaguna taabedelkeeda maamulku wuxuu dhaafsaday abaalka hore oo ahaa inay asiga meesha geeyeen oo abaal gudayo balaas in dhiil uu ku galay oo ay filladu iibsatay kuraastaas waa cid xoogaysa iyo sababta loo xoogayo waxaa nasiib darro la adeegsanayaa shakhsiyaad aan xil u hayn beeshatan wax mas'uuliyadahoo kursigaas ku saabsan hanaankiisana aysan hayn dadka noocaasuhu waxay dhinac mareen ahalnimadii iyo wada jirkii dadkan ka dhaxeeya ay dhinac mareen ayaguna hanaanka lagu boobayo waxaa la go'aamiyey in odaygii saxiixaha ahay oo sharciga ahay laga tilaabsado oo oday kale la qorto labo ergo aan si sax ah uga imaan beesha oo lagu darsaday dad kale oo aan beesha u dhalan in la isku daro oo odagaas aan saxiixaha ahayn uu u saxiixo oo sida ay hool ku tagaan hool loo geliyo lana sacbiyo la yiraahdo waxaa la doortay hebel la doortay waxaa sidoo kale kursiga loo sameystaa malxiisyo dad malxiis ah oo aan ka xumnahay runtii inay sharaftooda meesha ay dhigeen hanaanka in lagu boobo loogu talagalay kursigana waa hanaankaas weeye anaga musharaxiinta ah
waxaan safaro kala duwan ku tagnay deegaanka kursiga uu yaalay waxaan la soo kulannay guddiyadii waxaan la soo kulannay maamulkii qaybo ka mid a intuba waxay noo caddeeyeen inay dadaali doonaan laakiin nasiib darro waxyaabaha aan maqlayno oo hanaanka khaldan oo ay wax ku bilaabeen waxaan uga digaynaa inay oday aan sax ahayn iyo erga aan sax ahayn ay diiwaan geliyaan waxaan la kulannay dadkii kala duwanaa markaan halkan ku soo noqonnay maadaamaan ognahay beesha kursiga iskale in deegaanadoodii aysan xor ahayn oo cadow haysto waxaa la ogyahay ergadeeda waxaa laga qaadaa halkan muqdishoa laga qaadaa maadaama ergadeedii aysan joogin deegaan doorashada ergada halkan laga qaadayo marka iyo odayaashii halkan jooga ayaa waxaan u soo noqonnay inaan dadkii abaabulno erga saxana la sameeyo oo dadku ayagaa samaysanaya odaygii sax ahaa iyo dadkii wax ergadii isku yimaadaan odayaasha isku yimaadaan erga si saxna loo qaybsado annagoo hawshii ku jirna ayaan waxaan maqlaynaa in magaalada muqdisho laga rartay ciidan qaarkood aysan dadka kursiga iskale ahayn lana geeyey magaalada dhuusamareeb si loogu xoogo oo weliba la leeyahay muddo aan aada u fogeynaa la rabaa in hool inta la gashto la xoogo halkan markaan ku soo noqona waxaan ka war helnay in la yidhi ha la isdiiwaan geliyo musharaxiintu ha isdiiwaan geliyaan waxaan aada uga xunnahay aadna u la yaabnay in kursi aan la aqoonin dadkii dooro lahaa oo guddigii ku soo xuli lahaa ergada dooranaysa aan la diiwaan gelin in musharaxii la yidhaahdo 2 maalinta loo qabto isdiiwaan gel la yidhaahdo taana waxaan uga dignay war murtiyeedka aan soo saarno aad aragteen waxyaabaha marka khaldan oo kursigan ku heeraysan waxay ku soo koobmayaan hanaan khaldan oo ka bilaabanaya in ergadiyoon guddigii ergada xuli lahay oo aan diyaar ahayn ergadiyoon diyaar ahayn in musharaxiintii loo qabto 2 maalin waxaa ku xiga hanaankaas khaldan in la doonayo odayaashii saxiixaha ahay oo ergadii ku maqan in odayaal kale la qoro oo aan saxiixa lahayn waxaa khaladka labaad uu yahay in erga khaldan oo qaarkoodna aysan u dhalan dadka kursiga iskale ayagana diyaarada lagu daabusho intaas oo dhan waxay muujinayaan fulinta dhiilkii lagu galo kursigan oo ah halhayska meeshaas yaalana waxaa waaye hebel waa soo saaraya xildhibaanaan ka dhigayaa gar iyo gardaro waxaan ka digaynaa marka hanaankaas qaldan iyo xaqiraadaas la xaqiraya dadka kursiga iska leh oo lagula heshiinayo dad kale waxay bilow u yihiin kuraasta kale ee galmudug taalla iyo kuraasta dhammaan deegaan doorashooyinka kala taalla sida loola dhaqmi doono loola macaamili doono waxay hordhac u yihiin boobka doorashada madaxweynaha waxay noo muuqanaysa marka sida markaan eegna sida uu ku bilowday doorashadu ay ku bilaabatay oo kursigan ah sida loo dhaqmaayo habdhaqanka meesha aan ku soo aragnay sida maxaan ku iraahdaa la rabo sharci darrada ah ee lagu xoogayo kuraasti markaan eegna waxaa noo muuqanaysa dalkan in doorasho nabdoon oo lagu kala nabad galo inaysan ka dhici karin midowda musharaxiinta iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo siyaasiyiinta kale Soomaaliyeed stakeholderska waxaan u baaqaynaa sida tani doorasho kuma dhacayso jajuubka la sijuubayo la xaqirayo dadkii kuraasta iska lahaa maalin cad la dhacayo wax doorasho si ay ku dhici karta maaha waxaan ugu baaqaynaa marka in la saxo
hannaanka doorashada ku dhacayo kulan kale la isugu yimaado dadka doorashada u leh inay ka taliyaan inay kulamo kale isugu yimaadaan dibna u eegaan hannaanka doorashada Soomaaliya galmudug ay ka mid tahay kursigan dadka iskale ay ka mid yihiin dakana badan iyo eedo badan bay ka qabeen waxay